kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warbixin aanu idinkaga hayno xiriirka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ee FA-ga ah oo dacwad ku soo oogay tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta iyo xidiga kooxda Liverpool ee reer Colombia Luis Diaz oo gool uu xulkiisa u dhaliyay sabab u noqday in aabihii uu khatar ku galo isla markaasna isbitaalka loola cararo. xiriirka kubadda cagta ah ee dalka ingiriiska ee FA-ga ayaa dacwad ku soo oogay macalinka kooxda Arsenal Mikel Arteta waxayna ku eedeeyeen in uu ku xadgudbay xeerarka xiriirka kubadda cagta ee dalka ingiriiska. Mikel Arteta oo 41 jir ah ayaa ku tilmaamay go'aankii caawiyaha garsooraha ah ee muuqaalka VAR ee ahaa in gool uu u xukumo kooxda Newcastle kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League Ingiriiska oo toddobaadkii hore ay labada kooxood isku arkeen, taasi oo xiriirka kubadda cagta FA-gu uu sheegay inuu ahaa goolkaasi qaabka ay garsoorayaasha u maareeyeen qaab saxa. Goolkan uu dhaliyay xidiga kooxda Newcastle ninka la yiraahdo Anthony Gordon waxa uu lahaa 3 qalad sida uu qabo Mikel Arteta, waxaana sheegay Arteta in dhammaan 3daasi qalad oo jira haddana goolkaasi loo xukumay kooxda Newcastle. Mikel Arteta ayaa eedani loo soo jeediyay waxa uu haystaa in uu kaga soo jawaabo ilaa iyo maalinimada Talaadada ay soo socota. Maamulka kooxda Arsenal ayaa dhankooda sheegay in ay taageerayaan hadallada Arteta, waxaana sidaas lagu sheegay bayaan kooxdu ay soo saartay. Halka xiriirka kubadda cagta ee dalka Isbaanishku asna uu taageeray Arteta mar dambe isla markaasina uu sheegay inuu waajibkiisa ay tahay inuu kooxda difaacdo. Kooxdan ayaa sheegtay in garsooraha uu yahay mid aan la aqbali karin qaabka uu wax u maareeyay, waxa ayna intaa ku dartay bayaanka kooxda soo saartay in ciyaartoyda iyo macallimiinta iyo taageerayaasha ay dhammaantoodba xaq u leeyihiin inay xuquuqdooda ay difaacdaan. 3 qalad ayaa goolkan uu dhaliyay xidigan Gordon uu lahaa sida ay dad badan qabaan, waxaana lagu eegaya muuqaalka VAR si loo hubiyo haddii ay kubadda bannaanka uga baxday xariiqinta garoonka iyo haddii difaaca xidiga reer Brazil ee kooxda Arsenal Gabriel qalad loogu galay iyo haddii uu goolkan u ahaa mid offside ah. Laakiin dhammaan qaladaadkaasi ayaa waxaa meesha ka saaray kooxda qaabilsan muuqaalka adeegga VAR, waxaana sidaasi goolka loogu xukumay kooxda Newcastle. Madaxa garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta ee FA-ga dalka ingiriiska ninka la yiraahdo Howard Webb ayaa xilli uu la hadlayay barnaamij lagu falanqeeyo Premier League Ingiriiska waxa uu taageeray go'aanka garsooraha garoonka dhexdhexaadinayay, gaar ahaan ciyaarta Newcastle iyo Arsenal ninka la yiraahdo Atwell iyo kooxda kale ee VAR-ka qaabilsanaa qaabka ay wax u maareeyeen. Guuldarrada soo gaartay kooxda Arsenal ayaa soo gabagabaysay guuldarro la'aantii kooxdan ku bilaabatay horyaalka Premier League ee Ingiriiska, taasoo ku jirta kaalinta 3aad ee kala sarreynta, 1 dhibic ayayna ka hooseysaa kooxda hoggaanka haysata ee Manchester City. Xidiga reer Colombia Luis Diaz ayaa gool uu ka dhaliyay xulka dalka Brazil kulan ka tirsanaa isreebka koobka adduunka waxa uu keenay in uu aabihii oo ku dhex suuxo garoonka xilli uu aabihii ka daawanayay meel sare kulankan garoonka ciyaarta ay ka dhacaysay. Xaaladda Luis Diaz aabihiis ayaa khatar gashay xilli uu goolasha uu xidigani dhaliyay hadiyad uu uga dhigay aabihii oo meel sare ka daawanayay ciyaarta, maadaama kulankan uu ahaa mid adag oo labada xul uu ka dhexeeyo xifaaltan xooggan. Hal mar ayaa xaaladda aabihii isbedeshay, waxaana dadka la joogay markii hore u haysteen in uu farxad la ilmeynayo, laakiin mar dambe ayay ogaadeen iyadoo la arkayay asiga oo fadhiga ka sii dhacaya, waxaana hal mar isbedelay jawiga, taasoo keentay in ay dadku wada qayliyaan. Ha yeeshee guusha wiilkiisa uu keenay ayaa sababtay in aabihii isbitaalka markii dambe loola cararo isla markaasina uu xaalad adag u galo. Xidigan ayaa xulkiisa dalka Colombia waxa uu u horseeday in ay kaga guuleystaan 2-1 kulankii ay xulka Brazil ay isku arkeen. Brazil goolka qura waxa uu dhaliyay
da'yarka kooxda Arsenal Gabriel Martinelli.